guddidan dhismaha wadda bariis ayaa kormeer ku soo sameeyey wadadan oo isku xidhaysa wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya dhismaheeduna uu marayo wajigii labaad ee wada banaynta waxaana laga soo bilaabay deegaanka Balecabane iyadoo imika ay marayso Garabiise xogayaha guddida dhismaha wadda bariis Cabdiraxiin Xaashi Bacad iyo gudoomiyaha ku-xigeenka guddidaasi Axmed Xaashi Oday ayaa ka waramay halka ay wadadu marayso iyo sida loogu baahan yahay in laga wada qayb qaato wadada wadda bariis oo wajigeedii labaad ee banaynta uu socdo oo imika Garabiis afkeeda saaran waxaan runtii anu kelmad dardaaran u baan sheegaya baaq aan u dirayo dadka reer Soomaaliland ee dibadaha jooga oo aan ugu baaqayo inay hiil iyo howlba la hor istaagaan ay la garab istaagaan wadadan oo dhaqaalaha lagu bixiyo wadadan oo noqon doonta wado runtii isku xiri doonta kililka ama dowlad deegaanka Itoobiya iyo Soomaaliland muhiimad weyn leh wadadii Balecabane laga soo bilaabay oo galabta Garabiis joogto weeye waa taan barnaamijkeedina xagga waa ka inoo muuqaalka la marayo waa saasayna ku fiicantay meel fiican maraysa waxaan ogeysiinayaa ummadda wadanka wadadu marayso deegaankeeda meel kastoo ay joogaanba in ay ku tala galaan in marka inta la dhameeyo kontaroolka la gaadho hadii la yiraahdo 3 kiiloomitir kala ah hadsan yihiin maalinta la gaadhay la bilaabayo carratuulkaasina waa ka kharashka ugu badan loo doonayo marka cid wal oo na maqlaysa oo meeshii doontada joogtay wadada ehelwaba waxa la ogeysiinayaa in soo dhaqsa badan bishan dabayaaqadeeda hadii la yiraahdo ilaa bartankeeda la rabo in hawshii la bilaabo oo qof walba gurigiisa loogu iman doono hadii la yiraahdo gudoomiyaha guddida dhismaha wadda bariis Maxamuud Jaamac Quul ayaa isaguna waxa uu ka warramay oo uu tilmaamay muhiimadda ay wadadani leedahay waa arkaysaa wadadii waxay maraysaa fayskii hore wuxuu marayaa gabagabo ku dhow yahay waxa harsan 3 kiiloomitir ilaa 4 kiiloomitir baa harsan oo ku soo gaari doonta kontaroolka hadii la hayda waa fayskii hore ee banaynta iyo toosinta sarfeegareyntii weeye waa gabagabo sida qolada hore soo sheegeen waxa loo gudbayaa fayskii labaad ee carrakaawada oo kharash badan iyo xoog badan u baahan dadka reer Soomaaliland ee ganacsatada ee khayrka jecel waxaan ugu baaqaynaa wadadaasi oo la mid ah wadooyinkii hore Soomaaliland oo runtii ku soo korin doonta wadanka horumar iyo khayr fara badan inay ka qayb qaataan oo ay wax gashadaan baan ugu baaqaynaa dadka deegaanka ee ay wadadani khusaysan sidoo kale iyana waxaan ugu baaqaynaa inay tahay hawshu inta aan la daalin mar haddii gacanta lagu hayaan kala goyn bay ku fiican tahay iyaguna inay u diyaar garoobaan oo ay hawsha wadada iska rab taagaan ayaan ugu baaqaynaa iyagana dawladda lafteeda sidoo kale waa wadada ganacsi waa wadada hadii la ku roon yahay anfacaysa dalka waa wada xiriirinaysa ilaa Dhagaxbuur ilaa Hargeysa waa wada ganacsi xukuumadda lafteeda waxaan ugu baaqaynaa inay gacan weyn oo la xaalad ka geysato guddida gacanta ku haysa dhismaha wadda bariis ayaa bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan gudaha iyo dibadda iyo dadka kaleba ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha wadadaasi iyagoo lacagta ku soo diraya account xisaabeedada shaashada ka muuqda